wadnaha oo normal ah waxaynu kaga warramnay videoga ka horreeyay xanuunada ku dhaca wadnaha waxaynu u qaybin doonaa qaar electricity-ga ku dhaca oo danabka wadnaha iyo qaar xididada wadnaha ku dhaca iyo qaar muruqa laftiisa wadnaha ku dhaca iyo qaar ku dhaca baalada dhiigga u dhaxeeya oo valves la yidhaahdo noocay doonaba ha noqdaane magacyo kala duwanna ha yeeshaane kuwaasoo kala duwan ayaynu kaga hadlaynaa marka aynu kuwa ka hadallo inkastoo inaan fiyogan yar ee kooban ku dhammayn karaynin waxaynu dul istaagi doonaa horta xididadii ugu waaweynaa ee dhiigga keenayay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ku dhaca sida kuwa halbowlayaasha ah ee dhiigga wadnaha ka qaada iyo kuwa keenaba markaynu kuwa ka hadallo waxaynu dul istaagaynaa oo kale gariirka wadnaha waxyaalaha keena oo ay ka mid noqon karaan waxyaalaha oo la isu geeyo ama muruqa ha noqdaan ama ha noqdaan xididka ama ha noqdaan meesha danabka wadnuhu ka samaysmo waxaynu wadna gariirka iyo waxyaalaha u naqaano soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad haddii aanad channelkan ku subscribe garaysnayn waxaanu kaa rajeynaynaa inaad nagu soo biirto si anagana aad noo dhiirigeliso dadka kalena uu gaadho aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qaadan doonaa mid ka mid a xanuunada aynu kasoo sheekaynay oo ay ka mid tahay waxa loo yaqaano cardiovascular diseases oo ah in xididada wadnaha ama xididada guud ee jirka iyo wadnaha la xidhiidha oo ah in uu xididku dhuubto uu oxygentii iyo nutrientskii gaadhsiin kari waayo muruqa wadnaha ama muruqyada jirka oo dhan gaar ahaan kan aynu ka hadlayno oo muruqa wadnaha ah waxaa sababi kara in uu dhibaato ku dhacdo xididka laftiisa iyo inuu xididka gudihiisa waxa la yidhaahdo atherosclerosis ay ku dhacdo oo isagana subag waxaynu u naqaano uu xidho calaamadaha qofku marka horeysa isku arkayna waxaa ka mid ah bilowgaba inuu laabta oo cuslaata culays fara badan oo uu iskaga arka laabta iyo waxa la yidhaha radiating pain oo ah xanuun aan ahayn wadnaha meel ku beegan laakiin ama garabka ama xagga dambe ee dhabarka uu ka dareemo xanuunadaasi iyo dareenadaasi iyaga laftoodu qayb weyn ayay ka qaadanayaan waxyaalaha laakiin ugu muhiimsan inuu awoodda saari doono waxaa ka mid ah aynu dadkuna inta badan ku qaldaan xanuuno kale oo sida xanuunada caloosha oo kale lagu qaldo waxaa kamid waxa la yidhaha nausea and dizziness qofkaasi inuu yalaalugo fara badan yeesho oo madax xanuun walibana sidii wuxuu wareeraya oo kale iyo yalaalugo inuu qofku yeesho inta badan uu qofku daalan yahay laakiinse ayna si toos ah cilaaqa ula lahaynba GIT-ga ama qaybta cuntada ay marto waa waxyaalaha inta badan lagu qalda ayay ka mid tahay waxaa kale oo aad loogu sheega xanuun joogto ah oo aad u adag isagana in laga dareemi karo sida gacmaha oo kale in qofku ka dareemo waxa numbness-ka la yidhaahdo oo ah inuu qofku qamadhacyoodo iyo wixii la mid ah waxa kale oo iyadna dhici karta in xilliyada qabowga waxa la yidhaahdo Raynaud phenomenon oo ah inuu gacmihiisu ay qabow xanuun ku jiro oo dadka kale uu ka duwan yahay ay ku dhacdo xanuun aad u fara badan maadaama xididadiisii dibaddu ayna si fiican u shaqaynin waxyaalahaasi waa primary signs-ka iyo symptoms-ka aynu ku sheegi karno ee uu qofkaasi yeelan karo marka uu xididada guud ahaan jirkiisa iyo gaar ahaan wadnuhuba ay xanuunsanayaan conditionska ugu waaweyn haddaba wadnaha aynu ka hadli doono waxa loo yaqaano CAD baa jira oo coronary artery disease la yidhaah iyo atherosclerosis oo ayadna inay gidaarku wadnaha xididada wadnuhu adkaado kadibna uu soo ballaadho oo gudaha usoo ballaadho oo kadibna xidho meeshii uu dhiigu marayay ay noqotana meel xidhan qofkana ay ku dhacdo inuu wadna gariir iyo wax la mida kadibna loola cararo dhakhtarka waxaa kamid ah peripheral arterial diseases wax loo yaqaano BAG in la restriction ku dhaco flowgii xididada kuwii tegayay xagga wadnaha u soconayay iyo kuwii kaleba oo cramps iyo movementska ay qofka dhibaan oo iyaguna calaamadaha ay leedahay inay dhibaato ka jirto xididada qofku ku imaan karo waxyaalaha kale aynu halkan ku sheegi karno waxaa kamid ah xididada yaryar ee aadka u yaryar oo iyagana ay dhibaato ku dhacdo kuwaasoo iyagu chest pain iyo fatigue keena oo aan xididada waaweyn ee wadnaha aan ahayn goorma ayuu haddaba qofku u raadsanayaa dhakhtar goorma u baahanaya waa inuu kow hadduu qofku dareemo culays degdeg ah oo laabta kaga degay sida waxaan u qaadi karayn oo kale iyo inuu neefsigu ku adkaaday sidii wax la tuujinayo oo kale wadnihiisa dareemayo iyo in uu xanuun dareemo ka bilowda xagga hoose kilkiladiisa ilaa iyo bidixdiisa
usii soconaya. haddii qofku dareemana waa inuu si dhaqsaa uu u waco dhakhtarka ama uu dhakhtar u tago. waxyaalaha haddaba aynu ku controlina waxaa ka mid a waxyaalahaas ilaa 4 shay baynu u kala saari doonaa. afartaas mid waxa weeyaan waa lifestyle-ka qofka, oo qofka marka uu xanuunkii dhiiggiisi laga arko inuu subag ugu badan yahay, kadibna xaaladiisa nololeedna loo fiirsado, waxa lagula talinayaa waa mid. labaad waxa weeyaan haddii qofkaasi uu xaalkiisu ka baxsan yahay xilligii talada oo u baahan yahay dawo loo qorayaa. haddii dawadaasi ama aanu horeba dawo u qaadan ay kusoo boodo tahay oo muddo dheer xanuunkan isagoon dhakhtarna u tegin cidna u tegin uu iskala daala dhacayay, kadibna qayb ka mid a ama xididada mid ka mid uu xidhmo, iyagana waxaa la sameynayaa tumbooyin qaar ka mid ayaa la gelinayaa oo sharxi doonaa. iyo qaybta ugu dambeysa uguna khatarsan oo ah qofka inay heer noqoto in si naftiisa loo badbaadiyo, la furo wadnihiisa oo xididka la jaro, kadibna xidid cusub loo sameeyo oo meeshii lagu dhajiyo. waxaan u malaynayaa taasi inayna inta badan waddankeena ka suuragal ahayn, laakiin badanka inta kale oo dhani waa suuragal weeyaan in xataa xididka la furo wadnaha iyadoo stent la isticmaalayo. waa waxyaalaha suuragalka. ta koowaad waxay ahayd lifestyle change, qofkan in bal lifestyle-kiisii la bedelo. hadduu qof subaga iyo waxyaalaha aad u cabi jiray waxaa in lagala taliyo oo la yidhaahdo muxuha subaga waxaad isticmaalaysaa wax loo yaqaano heart health diet, kuwaas oo saturated fatisku ay ku yar yihiin. wax la yidhaahdo trans fatiska iyo sodiumta iyo sonkortaba intaaba lagu yidhaahdo inaad joojiso ama aad u yarayso. exercise qofka in loo qoro oo la yidhaahdo inaad regular activity aad samayso oo aad ka kacdo fadhiga, taasina waa mid ka mid ah oo wax la yidhaahdo cardiovascular fitness activity, oo iyaduna ah qofkan in uu dhakhtarku u qoro wax ku habboon xilliga iyo age-ka iyo nolosha uu marayo, oo iyadana aad u baahantay in dhakhtarka kuugu dhow aad kala tashato. iyo qofku dhibta ugu weyn nagu haysa oo ah qofku kow inuu hadduu yahay qof cabaa sigaarka caba inuu sigaarka joojiyo, haddii uu yahay qof qaadka cunana inuu qaadka joojiyo. labadaasiba inaga aad bay caafimaadkeena gaar ahaan cardiovascular systemka ay aad iyo aad uga qayb qaataan, dhibaato weyna way ku hayaan. talabaad waxa weeyaan haddii ay dhacdo in dhakhtarku uu qoro dawooyin, qofkan uu yidhaahdo sonkortaadu muxuu ahaa subagaagu uu sarreeya heerkaas maraya, dawooyinkan soo socda qaado. dawooyinka magacyo dhowray leeyihiin, kolley dawooyinka iyo inta miligram ay yihiin iyo sida loo qaatay iyo waxaas oo dhan dhakhaatiirta ayaa idin sheegi doonta oo muhiim aha. laakiin waxa weeyaan waa dawooyinka subaga yareeya, dawooyinka in ay wax la yidhaha plateletsku kusoo ururaan xididka oo ay sameeyaan waxyaalahan xidhaya wadnaha in iyagana laga hortago. kuwo kale oo loo yaqaano beta blockers in loo qoro iyo ACE inhibitors iyo dawooyin caynkaas ah. iyo mararka qaar marka ay dhacdo coronary artery-ga iyo xanuunada ka dhaca laabta qofku culays laabta ka dareemayo in dawooyin iyagana kuwa ka yareeya oo angina loo yaqaano, xanuunka loo yaqaano anginaha, dawooyinka ka yareeya iyagana loo qoro. okay, haddaba qofka lifestyle-kiisa baad bedeshay, dawooyin baa loo qoray, dawooyinkii iyo lifestyle-kii ama isagoo ha sameyn waayo qofkan patientkii xanuunsanayay, amaba haba noqotoba noloshiisi iyo cuntadiisii iyo waxyaalihii bedeli waayey, ama markaa uu ku yimid oo ahayd late stage kii ugu dambeeyey bee waxa dhacday inuu xididkii xidhmo tusaale ahaan. marka xididkii wadnaha marka uu xidhmo waxaynu maraynaa laba qaybood oo aynu qiimeynaynaa. wax la yidhaahdo minimally invasive procedure oo ah in la eego dhibta in la yareyn karo inta la yareyn karo, oo tumbe laga soo geliyo qofka halkaa lugta agteeda ilaa iyo wadnaha la gaadhsiiyo, iyadoo ay la socoto waxyaalaha isku xidhaya shabagaas oo stent loo yaqaano lugta midig agteeda. kadibna kor ayaa loo soo raacayaa waxa xididada qaar ka mid ah, sidaasaana wadnaha lagu imanayaa, kadibna waa la ballaadhinayaa meeshii ay xidhnayd, waxaana la dhigayaa shabag adag oo aanu dib iskugu soo noqon karin, saasaana lagu furayaa. wax kale oo baa jirta oo la yidhaha atherectomy, oo iyadana in subagii meesha ku xidhmay xidhay in isaga laftiisa catheterka lagu gooyo ama la fibrise gareeyo,
labada system waa la isticmaalaa. Adi muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan in qofkaasi xididkaasi loo furo isagoo aanu qalin weyn gelin. Ugu muhiimsan waa taas, isagoo qalin weyn gelin in xididka loo furo. Okay, haddaba ta ugu dambayso oo ah ta ugu khatarta badan waxa weeye haddii xididadaasi lagu guuleysan waayo iyadoo si kasta la sameeyey, waxa la yidhaha coronary artery bypass grafting waxa la yidhaahdo ayaa loo sameynayaa, ama CABG la yidhaha, ama CABG, oo ah in qofkaasi xididka wadnaha ee xidhmay gebigiisaba la gooyo labada dhinac, xidid kale loo sameeyo. welibana qaabka loo sameeyaa sidaa maaha, laakiin si aad ila fahanto waxa weeyaan in xididka halkii uu ka xidhmay inta la dhaafo halka kale ee ka dambaysa lagaga xidho xidid laga soo jaray jidhka meel kale oo kamid ah. inahaas ugu muhiimsan baan u malaynayaa marka aad eegto qaabka aynu ula tacaali karno xididka iyo dhibaatooyinkiisa. haddaba qofka marka uu dareemo garaaca wadnaha oo ziyaaday, dhidid fara badan, culays kaga imanaya laabta, xanuun u ziyaadaya xagga garabka ama dhabarka, kadibna uu garan waayo meel looga yimi, neefsigiisa oo yaraaday, waxaasina oo dhan muddo yar oo gudaheeda ku dhaco, waxaan rajaynaynaa inaad dhakhtar u tagto oo aanad isku eeganin. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. haddii aad halkan nala soo gaadhay waxaan kaa rajaynaynaa inaad nagu soo biirto insha allahu. video ku xiga waxaynu ka hadli doonaa muruqyada iyo xanuunada ku dhaca ee qayb kamida iyo ama waxaynu ka hadli doonaa electricity-ga dadba sida inoogu suura gasho, ama danabka wadnaha iyo dhibaatooyinka ka yimaada iyo sida loo xaliyo. aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullah. su'aalihiina iyo commentiga noogu reeba ama Facebook nagala soo xiriira. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullah.